farmaajo wuxuu u bareeray muddo kororsi uu xoog ku meel mariyo wuxuu dhagaha ka furaystay baaqidii ka soo baxay siyaasiyiinta cuqaasha aqoon-yahanka saraakiisha culimada iyo caalamkaba inta kale waxa uu muuqatay in muddo kordhintu ay qalalaase iyo xasilooni darri amni iyo mid siyaasadeedba keenayso laakiin farmaajo iyo kooxda yar ee ku hareeraysan uma aysan muuqantaa cadaadis ciidan iyo mid siyaasadeed oo gudaha iyo mid diblomaasiyadeed oo dibadda ah ayaa isugu darsoomay waxaa gebi ahaanba xirmay ilinkii muddo kordhinta farmaajo haatan wuxuu aqbalay inuu teendhadii ku laabto laakiin wuxuu markan laabanayaa isagoo tala aan gacan ku haynin 7 arrimood ayaana sabab u ah arrinkaasi 1 wuxuu laabanayaa isagoo ciidankii kala qaybsan yahay oo awooddii ciidanka gacantiisa aysan ku jirin weliba qaarkood ay filada kaabiga u saaran yihiin 2 iyadoo ra'iisul wasaarihii kala aragti yihiin maxamed xuseen rooble haddii ay shalay u muuqatay in farmaajo uu dhismi karo ama muddo kordhinta la socodsiin karo maanta taasi ma jirto rooble wuxuu ku qasban yahay inuu cid kale kaar ka saarto 3 iyadoo 5 maamul goboleed uusan gacan ku haynin maadaama ay dhammaantood qorshaha muddo kororsiga ka wada hor yimaadeen puntland iyo jubbaland ayaa horay u diiday 3 kale oo hoosta ka diidanaa laakiin farmaajo ka weji dadbayey ayaa maanta bannaanka la taagan 4 isagoo wasiirkiisii maaliyadda u sheegay in sagxadda la taagan yahay oo qasnadda dawladda ay faaruq tahay 5 isagoo taageeradii shacabka lumiyey gaar ahaan reer muqdisho oo habeen iyo maalinba ku mudaharaadaya 6 isagoo xalka mushkiladda afrika dhex geeyey oo aan faragelin shisheeye diidi karin maadaama uu isagu dalbaday 7 isagoo ay beesha caalamka ka soo wada horjeedo warbaahinta adduunkana tooshka ku daartay farmaajo wuxuu isku biimeeyey in muddo kordhinta xoog iyo indhaaday ku meel mariyo taasi waxay keentay inuu dib u heshiisiintii dagaalka doorbido taladii wadar ogolka ahaydna uu kala tirsnimo ka doorto dariiqii doorashada muddo kordhin ku bedelo federaalkii xukunka dhextalis ah ku bedelo xorriyaddiina caburin ku bedelo wada shaqayntii beesha caalamkana ta kornaan ka doorto farmaajo markii uu tabarta lahaa taladii ayuu diiday maanta uu talo ogol yahana tar ma lahan maxaa la gudboon oo aan ka ahayn inuu iska baxo ama iska tago